cod sir ahaa balse si kadis ah lagu faafiyey ayaa waxaa ku jira adoo leh dhaqaale ahaanna uma muuqano ciidan ahaanna uma muuqano tirada ciidanka meesha ku dhintayna annagaa ugu yar marka hadalkaasi maxaa ula jeeday waxaan ula jeeday qabiilka aan ka soo jeedaa waa dhulbahanta abaana haddii aan ahay dhulbahanta dagaalka waxaa ka socda dagaal qabiil iyo dad badan oo kale oo isi soo wada bahaystay la sheegaya ilaa iyo orama ku jirta la leeyahay oo shabaab baa ku jirta cid walba la leeyahay oo dhulbahanta ku jiro oo warsangeli ku jiro gadabiirsi ku jiro ciise ku jiro muxuu ahaa rag baanu ka soo horjeednaa noocaas isugu jira oo suuf alool camal isugu tegay marka definitely in iyagii dhulbahantii deegaanka waxaan qof walba ilaahay meel buu ku abuuray deegaanka laha inay ka maqan yihiin oo dhaqaalena uga maqan yihiin ciidanna uga maqan yihiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin hadda waa yimaadeen dhaqaalihuna wuu yimaadaa ciidankooduna wuu joogaa oo reeyay ciidan alxamdulillaah aad iyo aad u badan baa jooga laakiin marka aan hadlayay xilligan haddeeray waa kala jaad weey marka waxaan lahaa ciidanna keena dhaqaalana keena mana qarsanayn badee waxa la qarsanayo marka maba ay ahaynba haddii marka dhaqaaqaasi ama hawsha loogu talagalay in sida hadalka u wadeen lagu xoreeyo deegaan la haysto ay suurtagal weyso isla beesha soo eedeeda ma lahan mada way dhaafaysaa eedu iyaga sidee way ballaaranaysaa eedi dad badan ba qaadanaya dad doonaysa kelmadda inaad iga soo saarta afkana laakiin waxaan qabaa kor waayeel waa wada indho waa la garan karaya dad badan baa eeda qaadanaya haddii taasi dhici weydo because qabiil aad ka badan tahay ka awood badan tahay ka dhaqaale badan tahay ka karaamaya sumcad badan tahay inuu ku caga jugleeyo yani marmarka qaarkood waxaa diidaya garashada iyo caqliga diidaya haddii marka wada hadalkii tooska ahaana aad diideen midii dhexdhexaadinta ahaa la wadayna aad ka leexateen walina aadnan dhaqaaqaynin maxaa idin haysta adeer waa dhaqaaqaynaa insha Allah horena waa u dhaqaaqnay gadaal waa u dhaqaaqi doonaa dibna waa ka dhaqaaqaynaa insha Allah billahi ta'ala waxyaabo iska technicality waa jiraan laakiin I guarantee you dagaalkan isma taagaya sidaan hore ma baqarsada anigu Ibrahim wadani ma qarsado anigu inta taaka dhulkaas lagu jiro dagaalkan isma taagaya waa la wadaya way tii u daran Muuse ha isticmaalo iyadoo dhulkii laga qabsaday iyo dadkii oo ka dhintay iyo iska guuro dhulkii ka baneeyay wax ka dhaxeeya ma jira shay saddexaad nothing in between waaye 4 sano iyo 8 bilood ayaad xilkan haysaa ee mudane madaxweyne marka laga soo tago Puntland guud ahaan inaad madaxweyne ku xigeen u tahay haddana dadka aad booskan u matasho tafaraaruq siyaasadeed ayaa ka dhex jira saad la socotid oo ma midaysna kumana aadan guuleysan adigu ku dhaada isku keenistooda dadkaas miyuusan halkaasi fashil xaggaaga ah ka muuqan waxaan u malaynayaa taasi keli kuma aha reerka qof kastoo adeegto amiin qabiil kastoo adeegto uu yar qaybsan yahay qaar baa federaalka jira qaar baa Somaliland jira qaar baa muxuu ahaa Ethiopia la shaqeeya qaar baa Puntland jooga qaar baa khaatuma iyo SSC iyo wax badan baa la sheegtaa waana wax soo jireen oo anigu intaanan iman jiray SSC way jirtay khaatumana waa jirtay markaan anigu dalkan imin waxay la tahay cid ku fashilantay kuwii iga horeeyay baa ku fashilmay haddaan cid ku fashilmin oo aan qabo inaan cidna ku fashilmin ee nature-ka siyaasadeed iyo abuuridda bini aadamka baa sida ku salaysan waxaan ku sheegayaa xilli la iskaga dhow yahay maanta noocna baa haatay inaan jirin waxaan manayaa taasaa guula waaniga kule calaf iyo ciidanba waa la joogaan taasi iskagama iman ciyaar kuma iman midna bay ku timi garasha ku timi wada hadal bay ku timi nooc walba waa ku timi maantana diyaar waxa loo yahay in yani qof walba waajibaadkiisa uu qaato kii dhaqaale bixinayaana uu bixiyo kii naf bixinaya uu bixiyo kii xoolo kala bixinaya yani nooc walba kii siyaasad iyo hadal baa ugu yaro qofka haduu ku yiraahdo it's fine marka dagaal in la wada qaado ayaa idin mideeyay miya mada dhalasho dagaalku waa qayb weeye wax badan baa mideeyay marka haddii dagaalka inta la qaado lagu guuleysto maxaa ka sii dambeyn doona waxaa ka dambeyn doona insha Allah gacanta la isqabsanaya waa la wada hadlaya wada hadlaabihiis haddii wax jiraan ama jireen
muhiim maaha in yani marka dhulkii la qabtay in soo baxdo haddaba waxa weeyaan gacanta la haystaa waxaana la isu haystaa waa dhibaato dadka wada saameysay oo nin walba taabatay nin walba gartay maanta inuu dhibaatada dadka ka saaro taas ay sukaaya keentay waxaan ka hadlayaa aaga kaliya maaha waa waxa weeyaan aagag badan baan anu ka hadlayaa sukaaya keentay dhammaantayna isku fikir baanu ka nahay isku jeedana waanu ka leenahay hal mid sida la socoto khaatumo laba ayay u kala jabtay qaybna Puntland ku biirtay qaybna Somaliland ayay heshiis la galayaan Puntland iyo khaatumana isku maysan fiicnayn maxaa sababay baad isleedahay in madaxweynihii kulay madaxweynayaashu waa badan yihiin khaatume mid kamid ah uu joogo Garowe oo haddana idnan ku dhawaaqin inaad midowdeen hadalku isbedelada adduunka ka dhacaya siyaasadeed baa keenaya xilligii la sameeyay xilli buu ahaa maanta inuu joognaana waa xilli yani isbedelka inta la eegay yimi wuxuu yani aanu garanay oo aanu ku wada hadalay inaanay suurtagal ahayn in la kala maqnaado ay ku fiican tahay mar walba midnimada iyo unity-gu uu ka fiican yahay kala daadsanaanta taas ha keentay midnimada qolada anigu Somaliland uma arko waxa weeyaan qadiyadi ma geyn muxuu ahaa midnimo kale ma geyn wada dhalasho ma geyn waxa weeyaan hunguri baa geeyay marka nin waxa la yiri nin sorry ka qaaday waa nin seef ka qaaday marka nin hunguri geeyay anigu waxay la tahay ka hadalkiisa ma doorbido oo kan halkan yimid asaguna maxaa wada no toonana wax ka dhistay halkan cid igala ba iska yar madaxweyne ku xigeen baa soo marka dalka oo dhan Ibrahim dalka madaxweyne Cabdiwali baa iga sareeya xaga maxay ku haystaan waa mas'uuliyiin waa xildhibaano waa wasiiro adeer qabiilada ugu faraha badan bay jiraan waxay xaq u leeyihiin cad quureed baan anigu taa aqaana de joogaan iyo hadaan joogin ba cad quureed baan aqaana yani wasiirada fiir la siiyo nooca yihiin fiiri quality-ga laakiin talay leeyihiin bi si wasiirada qaata hela awayaan xildhibaan loo soo doortaa ma jiro waa kulligood waa xildhibaano anigu de ma aqaan laakiin isxambaar miiran weeye meesha anigu halkan isxambaar kuma joogay dadnimadaydan ku yimi qabiilnimadaydan ku yimi kamid ahaanshahan ku yimi dawladda inaan wax ka samaystay baan ku yimi waxaad leedahay halkan aan ku badannahay halkaasna ku yarna yaraan iyo badnaan ma lahaanshahan ka hadlayaan lahaansho tan wax baan ku leeyahay dhulkan wax ku leeyahay siyaasaddan wax ku leeyahay dawladdan wax ku leeyahay yani hal nin baa iga sareeya dawladda meeshan ka jeedana waa dogtay isla meeshaas anoo tixraacaya muddo badan baad halkan hadda joogtaa ilaa iyo 4 sano iyo dheeraada oo wax badan ayaad ka fahamsan tahay siyaasadda waliba beesha aad matasho oo aad wax badan ka ogtahay siyaasiyiinteeda saar la socoto marka waxa joogto noqotay isbedbedelka ku yimaada siyaasiyiinta gobolka soo iyo ayn naftigeeda marka xilka laga qaado labada dhinac ay ka tirsan yihiin ama Puntland ha ahaato ama Somaliland ha ahaato waxa inta badan la arkaa siyaasigii oo dhinaca kale u wareegay ma waxaan jirin inta badan ka go'naansho ah qofka inuu dhulka asagu leeyahay si cilad kala jirta wallahi taa arinta waxay la tahay waxa la nimankii boodbooday waxaan hubaa kullayba awalan ani qofka saa sameeynaya markii soo horuusan qardiyad waa kuwa aan ku leeyahay nin soore ka qaaday waa nin seef ka qaaday aan ku leeyahay qardiyada aanay lahayn marka horeba ninku haddii intuu tan jooga taa u cararo waxa weeye waxaan u arkaa anigu yani ka hadalkiisu waxaniga ii yaalla maaha laakiin way dhacday ma sabadna haddaad imika 1 iyo 2 iyo 3 tiraado intaasoo siyaasiyiin for example aan hal mid ku idhaahdo madaxweyne ku-xigeenada Puntland soo maray waxa weeyaan 4 madaxweyne ku-xigeen baa dalka soo maray nin kaliya oo Somaliland u galay markuu meesha ka fadhiistay ma jiro markuu ugu horreysay kulligood waa niman reer Puntland qaar waaba dhinteen ilaahay oo naxariisto kuwa kalena Somaliland nama tagaan xidhiidhna ma laha haddii aad aragtay dad fara ku tirisoo 1 iyo 2 iyo 3 haddaad aragtay de 97% kii kala meeye bartoodii kama dhaqaaqin halkan bay joogaan marka hal nin iyo 2 nin haddaad doonayso burur kaliya bururo badan qudumsa haddaadan adiga ujeedadaadu ahayn adeer markay ka tagaan meesha waa wada joogaan dalkooday joogaan aaminsan yihiin mana jirto fakarka su'aasha aad weydiisay wax meesha soo gala ma way marka madaxweyne adigoo raali haddaan ku sii raaciyo
ma laga yaabaa adiga naftigaaga inay ku saameyso maadaama waqtigaagu dhammaad yahay umalayn maayo inay saameynayso si ay ii saameysaba guri kama rabo siyaasad kama rabo deegaan kama rabo waa dal Soomaaliyeed oo hadii la heshiyo waa hadii la heshiyo hadaaro kismaayana aadaya oo hadii la heshiyo Hargeysa boorama ku socda hadii la heshiyo iyo sayla hadii la heshiyo fine waan tagaya anigoo shakhsi caadi oo u tagaya qaraaban ku leeyahay meesha saa ula socoto marka yaani weligeed lama kala go'ay laakiin siyaasadna kama rabo hadii la heshiyo inaad gogol xaar ka sii dhiganayso laga yaabaa madaxweyne kama dhibanayo ka dhigan maayo laakiin waxa weeyaan anigu nin wax ka doonanayo dhaqaale ka doonaya ama kursi ka doonaya haba yarataas banaatay hadii aan wax jiri doono oo maanta kalmada aan leeyahay weligeed bay jiraysaa horena waan u tagay Hargeysa by the way aan ku sheegay markaan soo marayna shakhsi aan is aragnay baaba iska yar gaaraan ku tagay diyaarad baan ka raacay gaarigayga ma soo kaxaystay waana ka soo baxay cid baan aan is arag cid baan waxaan siyaasina ma ahayn maanta aan siyaasi noqday qof madaxweyne ku xigeen Puntland waxaan ka jirinayaa iska yar